bay ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha uu xaqiijiyey dhimashada 6,100 rayid ah iyo ku dhowaad 9,700 oo qof oo ay ku jiraan carruur oo ku dhaawacmay colaadda. Ku-xigeenka wakiilka sare ee qaramada midoobay Kate Gilmore oo warbixin u gudbisay golaha ayaa waxa ay sheegtay in tirada dhabta ah ay intaasi ka badan tahay. The leading cause of civilian casualties are the airstrikes conducted by the Saudi-led tan ugu weyn ee sababaysa dhimashada iyo dhaawaca waxa ay tahay duqeynta cirka ee isbahaysiga Sacuudiga waxaana duqeymahaasi ay mas'uul ka yihiin 61% qasaarahaasi waxaana intaasi dheer duqeymo iyo toogashooyin ka dhacaya meelaha dadku ay ku tiro badan yihiin in densely populated areas by the Houthis accounting for much of the remainder. Gilmore waxay sheegtay in duqeymaha dawladaha aan ciidawadan ee droonka ee Mareykanka iyo weerar kale oo ay geysanayaan koox xiriir la leh Al-Qaacida ay ka soconayaan badi dhanka koonfureed ee Yemen. Qaramada midoobay ayaa ku eedeysay isbahaysiga Sacuudiga xayiraadaha dhinaca badda iyo cirka ee ay ku soo rogeen dalkaasi waxayna intaas ku dartay in xayiraadahaasi gargaarka aadminimo iyo alaabaha dalkaasi uu la soo dego ay sii kordhinayso dhibaatada daran ee hore u haysatay malaayiin ruux. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 22 milyan oo dadka reer Yemen ay u baahan yihiin gargaar aadminimo